magacaygu waa Cabdirasaaq Axmed Maxamed waxaan joogaa magaalada Muqdisho tixdan yar ee kooban oo aan ugu talagalay magaalada Muqdisho ayaan kaga qayb qaadanayaa tartanka silsilada nabadda waxaanu ku bilaabaysaa xaramkii nashaadkaay xeebtii nusqaantii iyo ka hufneyd xumaantaay shantii cadawgu kala xidhay xuduntii astaantii iyo xarunta u ahayd ee xilka guud ka saartay xeerinaysay gacalkaay xidigtii mudnaantii iyo xambaarnayd midnimadee xanaanaysay calankee xanjeerka u adkaysay xornimada u dirirkii kuwii xawda loo jaray ee galay xabaalaha xaruntii halyeeyada xuska looga dhigay ee dunta loogu xidhay badanaa xasuusaha xamaray guntaadiyo xilligaaga yaala taariikh xardheeroo qarniyaal xidhiidhliyo xukun soo jireenoo lagu xusay tagtadabaad xamaray ku caanto dad xadaarad guunlaa xaakimkuugu deeqoo xa kastaba raxmaanka nimco kaaga xoorsho xeeb loo dalxiiso xaaxigeeda ruux tegay xasilooni gelisoo xiska maalmo waayaa daltabyada u xiisaad xamaray ku gaarto bilicdaadu xaram iyo waa xuural duniya xaashee degaanaan abid xaalufayn baad xamaray ku caan tahay habla xuural cayn iyo bulsho wada xariiroo xurmo soo dhoweyntiiyo xigashada walaalnimo xeer ay u tahay oo xagsoor lagu yaqaanaad xamaray ku caan tahay hooyadii xanuunkiiyo xanaftiiyo dhibaatada muddo badan xamilaysay xoobkaagii dhumay baaxaad soo bidhaansho xubnahaaga maqan iyo xoolahaagii dhumay oo xero kuugu jiraba xalay lay sawirayoo xidigaagii damay baa nuur soo xawilayoo nasiibkaa xumaadaa xays kuu darooroo waqtigii ku xidhay baa xalka kuu diyaarsho xaakim idamka weeye xasilooni waartaad ku xayaadaysaayoo xilligii la gaadhaba riyadaadu xamaray way xoroobi doontaa.